السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي دمانتين مeel kastoo caalamka aad ka joogtaan ba isku soo noqod wanaagsan waxaan idin rajaynayaa khayr iyo barwaaqo ma jiraan dhaqamada qaar aad ku yaabgeliya markaad la kulanto waxaa jira dhaqamo bini aadamka markaynu kula kulanno runtii aad mararka qaar isweydiinayso qofkan miyaad istaqaanin horta mase waa qof aydan baysa aqoon hadba caaw muuqaalkan waxaan kugula wadaagi doonaa 5 dhaqan oo dhaqamada ka mid ah dhaqamada midka u horeeya wuxuu yahay weligaa si qof uu kaaga raali noqdo ama bini aadamku ay ku jeclaadaan ha isu bedelin meesha filan waagu inta badan uu kaga yimaado qofka waa marka aad qof dartii isu bedesho oo qofkaasu uu raali ka noqdo hase yeeshee sida aad adigu iska dhigayso si qofkani uu raali kaaga noqdo aysan naftaadu raali ku ahayn inta badan way adag tahay qofku inuu sii wado waxayna keentaa in markay muddo socoto aad wixii iska dayso qofkii aad shalay dartii waxa u samaynaysay sidii uu ku ahaa kuuma ahaanayo dhaqankiisu waa isbedelayaan mararka qaar markaan dadka la talinayo ama waxyaabaha qaar iga soo gaara dadkay tani ka mid tahay marka qof tusaale ahaan uu yiraahdo qofka hadda aanu nolosha wada wadaagno mushkilad baana dhex taal baa waxaan iraahdaa naftaada dib ugu laabo waxaa jirta qofkaasu markii hore uu raali ku ahaa laakiin hadda isbedel uu ku yimid intuu doonaba hal eekaado shaygaasu waxaa dhici karta qofkan inuu koolkoolin kaaga bartay laakiin stresska nolosha iyo hawlaha kala duwan iyo mas'uuliyadaha ku saaran baa waxaa dhici karta taa inay isbedel ku keentay adigu aadan dareensanayn tanna waxay keentay oo natiijadu ay noqotay in qofku sidii hore uusan ku ahaan bini aadamku sida guud ahaaneed raaligelintooda way adag tahay in aad ka salgaarto ama qof 100% oo kugu qanaco haddaad noqoto qof u taagan sidii bini aadamku u jeclaan lahaayeen sidii bini aadamku raali uga noqon lahaayeen in badanoo waqtigaaga ka midana waad lumin in badanoo noloshaada ka mid ahna waxaad kala kulmi doontaa niyad jab midda labaadna waxay tahay bini aadamku ma arkaan mana dareemaan xanuunka iyo dhibka ku haysta laakiin waxay arkaan khaladkaaga waa laga yaabaa inay filan waa kugu noqoto oo mararka qaar aad isweydiiso tiraahdo intanoo dhan qofkii aan u wanaagsanaa maxaa ka dhigay bini aadamka kan iigu xun waxaa laga yaabaa bini aadam baa tahay khalad bayna ka wada dhacaya dhammaanteen qof ina ka mida oon khalad gelayni ma jiro adduunkan haddaad isu haysata inaad malaa'ig tahay isu haysata inaad adigu saxan tahay perfect tahay wax kaa khaldamaa aysan jirin waxbaa kaa khaldan qof ina ka mida oo aan dembi ka dhacayn ama khalad ka dhacayni ma jirto intaasoo sano haddii aad xaafidul qur'aan ahayd oo masaajidka safka hore ku tukanaysay oo dadka khayr ma ogi wax kale aadan la wadaagi jirin markay afkaaga hadalba ka maqlaanba uu wanaag ahaa hal mar markuu khalad ka dhaco meel walba adduunka halka khalad baa la marin Soomaalidu waxay tiraahdaa beentaada hore runtaada dambe u darantay bini aadamku wanaag kastood leedahay intuu doono weynankiisu hal ekaade waxay ku dhajiyaan maalmahaagii tagay maalin kastood wanaagsan tahayba maalintii tagtay baa lagu dul qoraa laakiin marka khalad uu ka dhaco ama inaba xumaani ay ka dhacdo walow xumaantaasu mid bini aadamka saameyn ku leh aysan ahayn inay ogaadaan baa ku filan waxay ku dhajiyaan mustaqbalka taa macnaheedu waxa weeyaan maalmaha adduunka aad nooshahay ee ku soo socdo dhan xumaantaas mar walba lagu horkeeni waxaan iraahdaa mararka qaar waa meesha ay ka keeneen shambari sheekh laguma noqdo midda saddexaad waxay tahay waana idin huba in badan oo idin ka mid inaad hadalkan igu raaci doontaan bini aadamka qaar in aad kala dhammaataan oo safaaradaha kala qaadataan oo kala go'daan ayaa kala sahlan inay run ku sheegaan ama daacad ku noqdaan oo kugu cilniya mar kale bini aadamka qaar ka mid ah inay daacad ku noqdaan oo run ku sheegaan iyo marka la isbarbar dhigo inaad labadiinu kala go'daan oo dib dambe isula hadlin nolosha tan waxa la sahlan inaad kala go'daan su'aasha isweydiinta leh waxay noqon dadka sidaa kuula dhaqma qiimo intee leeg bad agtooda ku leedahay waa laga yaabaa inaad u haysato inay ku ixtiraamaan ku sharfaan madaxa u saaran tahay qiimo agtooda aad ku leedahay laakiin qiimo kuma lihid qof marka aad weydiiso meeshana kama hadlayo laba qof oo isla socota kama hadlayo laba qof oo isqabta oo xalaal isu ah kama hadlayo qof gooniya waxaan ka hadlayaa sida guud ahaaneed bini aadamka qofku doonaba ha noqdo qof wax uun xiriir uu idin ka dhaxeeyo wuxuun ba isu keenay danaha adduunka kamid ah qof marka aad wax weydiiso inuu run ku sheego ay la tahay sidii in aad tiri libax orod mici iga soo bixi qofkaas qofkaaga ma aha
haddii midkeen uu ogaado qofku ganacsiga kula jiraa inuu khaa'in yahay ma kula sii jiraya waa maya waad kala baxaysan haddaba yaysan filan waa ama la yaab kugu noqon marka aad la kulanto dadka qaar ay la sahlan tahay inaad kala tagtaan intay runta kuu sheegi lahaayeen midda afraad waxay tahay dadka qaar waxaad si dhaba u barataa markay waxay rabeen kaa waayaan u fiirsa bal adigu weli ma la kulantay qof intuu wax ka doontay ka soo waayay sida uga sheekeeyo u fiirso dadku sidoodaba bini aadamka qaar waxaa jira mar walba u taagan inay adiga ku adeegsadaan ku isticmaalaan wayna ku adag tahay maalinta aad tiraahdo ma hayo hadda ka hor baan waxaan xusuustaa Etoobiyaanka markaad wadada iska marayso kuwa meelaha iska fadhiya qaarkood baa wax ku weydiinaya waxaa laga yaabaa hal bir inaad u dhiibto haddana maalin kale aad soo mariyo waxaa laga yaabaa nus bir u dhiibto wuxuun baa laga yaabaa adigu inaad siiso odan maaragtay maalin walba gacan marnaan inaadan dhaafin maalin maalmaha ka mid ah adoon waxba haysano taada u yaaban baa laga yaabaa meesha inaad soo marto oo ku qabsan oo kula dagaali labadiina wabad isfeeraysaanba waa ninka shalay wax siinaysay bini aadamka qaar badan oo jazaara jira oo haddaad si kasta wax ugu samayso wixii horead u samayso dhan wuxuu ku iloobayaa halkan mar way ujeedadiisa oo dhanba waa inuu ku isticmaalo inuu wax kaa qaado ma ahane lagama yaabo inuu wax kugu soo kordhiyo haddaba yaysan la yaab kugu noqon haddaad la kulanto dadka qaar ka midahoo wax kastood u qabatay waxay doonaan ba ha noqdeen adoon sheeganaynin ka dhigaya sidii inaadan weligaa waxba u samaynin sababtuna maxay tahay hal mar oo kaliya baa laga yaabaa inaad tiri walaalo maanta ma awoodo ama waxaa maanta ma qaban karo ama mashquul baanahay iyo wixii la mid ah midda shanaad ugu dambaysa intaan ugu gelin haddii intan aad ila soo gaarto videoga aad ila socotay channelka haduusan subscribe ku subscribe dheh videoga like igu kaalme wixii faalla ahna qaybta commentiga igu dhaaf midda ugu dambaysa waxay tahay ficilku wuxuu tusaa qofku wuxuu yahay hadalkuna waxa uu rabo inuu noqdo labadan iyaysan iskaga kaa khaldamin marka qaar soo ma dhacdo qof inuu ballan kaa qaado waxaasaan kuu samaynaya waxaasaan kuu yeelaya laakiin ballantu mar walba waa jaban tahay waxay tusaysaa qofkaasu shakhsi ahaan waxa uu yahay ballan afrikaan waxa la yiraahdaa ma jirto hadduu qofku ku yiraahdo waxaasaan qabanaya waxaasaan samaynaya tusaalaha marka uu xanaaqo kale ficilada qofka ka dhacaya waa runtiisa dhabta waa qofku waxa uu yahay aan meeshan kaga faa'iideystay soo ma dhici kartin qof la socoto qofkani marka uu xanaaqo balaayo dhiga telefoonkiisa laga yaabaa xataa inuu jabiyo wax kale ba iska daaya ciil iyo carad darteed inuu darbiga ku masaxo rajaadna ka qabtaa mustaqbal inuu qof wanaagsan qofkani noqon doono tusaalahan gabar baad la socotaa waxa laga yaabaa intay xanaaqdo galaaska biyaha ee meesha saaran inay wajiga kaaga shubto waxaad laga yaabaa mararka qaar naftaada inaad cudurdaar bixiso tiraahdo waa uun dumar oo way iska xanaaqday laakiin arrintu intan way ka fogaan doontaa maalinkaad nolol wada wadaagtaan qofku shakhsiyadiisa dhabta ah baa la arkaa marar badan marka uu xanaaqo waa inuu qofku iskontroli karo waa inuu iscelin karo waa inuu wax la hari karo waa inuu qadarin iyo qiimeyn kuu hayo waan carooday marka waxaan doonaan sameynaya wax la yiraahdaa ma jirto bini aadamku marka sida guud ahaaneed qofka ficilkiisa u fiirso ficilkiisa eeg maanta dhan hadduu ku leeyahay waan ku jeclahay waan ku rabaa cirkaasaan ku geyn waan ku cadayn waan ku madoobayn taas waa mustaqbalka laakiin sida kale marka guud ahaan ficiladiisa fiiriso sida uu u dhaqmayo waxay xaqiiqa ahaan ka turjumayaan shakhsi ahaan qofkaasi waxa uu yahay haddaba dhammaantiin haddii naftayda yari ay gaarto intaynu muuqaalka ku xiga dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh